cudurkan coronavirus waxaa keena viruska la yiraahdo coronavirus oo weliba virus cusub ah coronavirus ama covid 2019 covid-19 waxaana uu ku gudbaa haddaan soo koobno wuxuu ku gudbaa yani qaabka yani kadib marka qofka ama hindhiso ama uu qufaco oo marka yani qoyaanka ka yimaada qaybta yani neefsashada halka uu gudbo qofka kale ee fiyo halkan uu ku gaaro ama ku neefsado ku qaato waxa kale uu ku gudbi karaa gacmaha haddii ay gaaro aduuga markuu gaaro oo afka iyo sanka iyo indhaha la saaro halka sanka uu gudbi karaa jirka intiisa kale waxaa muxuu ahayto cudurkan aad yani u caawiya muxuu ahayto fiditaankiisa goobaha aad la iskugu yimaado haddii uu jiro muxuu ahayto qofkii qabay yani muxuu ahayto cudurka ama uu gudbo ka yahay haddaan soo qaadano astaamaha cudurka waxaa ka mid ah yani waa qandho xoogan qufac aad u daran kor xanuun jir xanuun madax xanuun qofkii oo tabar waaye daal aad u xoogan kadibna waxaa uu isku arkaa neeftii oo dhibaatayso ama dhibta halkaas oo uu sii gudbi karaa inay kusii xumaato neefta si yaraata oo markaa neefta uu neefsan waayo halkaasna uu aado mahayto oo foreen waxay yidhahdaan kusii dhaco cudurkan waxaa yani uu u daran yahay ama aad ugu daran yahay dadka yani da'da ah yani saddex nooc uu leeyahay laakiin waxaa aad ugu daran yahay dadka da'da ah halkaasoo waxaa la yidhaahdaa yani boqolkiiba lixdii qofoodba qof yani ayuu aad ugu daraadaa ama uu dili karaa taasoo keeni karta in uu maaragtay qofkii uu yahay qof da-ah qaba cudurrada aad iyo aad yani cudurrada ay ka mid yihiin dhiigkarka sokorta cudurradan keliyaha la dhaqo iyo wixii la mid ama difaaciisaba uu hooseeyo taas ayuu aad ugu gudbi karaa ama cudurrada kale oo maxay tahay chronic formka oo noqdo oo saableyda ku dhaca sida dadka bronchitiska chronicada qabo oo weliba dadka sigaar cabka ugu badnaan kara ka hortagga cudurkan waxaa loo baahan yahay in yani la iska ilaaliyo qofka qaba in yani loo jirsado masaafo dhan 1 mitir ama 2 in laga fogaado iska ilaaliyo qofka markuu qufaco ama hindhiso uu yani safletiga saara afka wax saaro oo markaana uu ku rido qashinka in yani gacmaha la dhaqo mar kaste oo ama yani banaanka loo baxo ama dad la salaamo in la isku salaamin gacmaha oo ka mamnuuc ay tahay gaar ahaan weliba xilliga saf marka uu jiro qofka yani qaba ama lagu arko inuu gurigiisa joogo lana xiriiro dadka mas-uuliyiinta caafimaadka ee hawshaas sida gaarka ah ugu howlan si aysan u noqon mid uu muxuu ahayto u baahiyo ama uu faafiyo cudurkan waxaa la yiraahdaa boqolkiiba dadka awoodda difaacooda fiican boqolkiiba 80 waa ka badbaadi karaan yani waa ka bogsadaan waxaan sheegay in aan toos loo taaban qofka xanuunsan muxuu ahayto inaa xirato maskar haddii maskar sanka lagu xirto haddii uu jiro muxuu ahayto qofka lagu tumaayo ama uu qabo cudurkii in nadaafadda guud oo aad ku dadaashid waxaa kaloo ayadana muhiim ah in la yareeyo goobaha lagu kulmo ama lagu shiro ama laiskugu yimaado sida yani goobaha shirarka muxuu ahayto in la yareeyo goobaha laiskugu yimaado ama lagu kulmo sida maqaayadaha baararka meelaha waxyaabaha la midka ah waxaa kaloo loo baahan yahay haddii laga kabsado in la yareeyo shirarka iyo xafladaha tan kaloo waxaa loo baahan yahay in la yareeyo ama la joojiyo safarada ama dibadda lagu aadayo ama dibadda looga imaanayo waddanka ayadan in la joojiyo loo baahan yahay
midda kale muhiimka waxaa la rabaa inaan u gudbiyo bulshada in cudurkan uu qof kaste uu ku dhici karo, ha noqoto muslim, ha noqdo gaalo, yani ha noqoto maaragtay qof yar qof weyn, madow caddaan, diintu rab ha lahaado, inuu qof kasta uu ku dhici karayo, balse loo baahan yahay qof kasta inuu iska ilaaliyo. waxa muhiimka ay tahay ka hortagiisa, yani ayaa muhiima sida looga hortagi lahaa inuu ka hortaga loo baahan yahay, maxaa yeelay ka hortaga ayaa ka wanaagsan in daaweynta. midda kale aan rabay waxaa waaye daaweynta weli inay waxda daawo degdeg ay soo bixin bacdamaa cudurku cusub yahay, daawo degdeg soo baxday weli ma jirto ilaa aan ka ahayn yani waxyaabahan qallada iyo waxyaabaha lagu daaweynayo oo lagu yani ridaayo xanuunkaas, balse WHO ama ururka caafimaadka adduunka inuu u howlan yahay sidii loo soo saari lahaa daawo ama tallaal yani looga hortago viruskan oo muxuu ahayd runtii bulshada caalamka dhibaato weyn ku hayo. waxaan kaloo rajaynayaa waa in aad ku xirnaato ilaahay, waa in ilaahay aad ku xirnaato argagaxana aad iska yarayso.